kooxda Napoli la dhigay isbitaalka. Halyeeyga Diego Maradona ayaa lagu sheegay inuu yahay kii ugu fiicnaa ebed ee soo mara kubadda cagta adduunka, gaar ahaan waxa uu astaan u yahay dalka Argentina, waxaana la sheegay in isbitaal la dhigay kadib markii lagu sheegay in uu caloosha markaasi dhiig kaga furmay. sida ay sheegtay gabadhiisa Dalma, Maradona ayaa laga soo saaray isbitaalka 58 sano jirkan reer Argentina ayaa tijaabooyin joogto ah markaasi ku marayay dalkiisa hooyo ka hor inta markaasi uusan dib ugu soo laaban dalka Mexico, halka uu macalinka u yahay kooxda uu haatan leeliyo Diego Armando Maradona. kuwa dhabtii aad baan markaasi ugu walaacsanahay aabahay ayay tiri gabadhiisu, waxaan idin sheegayaa inuu fiican yahay iminka. Dalma oo ah gabadha u dhalay Maradona ayaa sidaa sheegtay. goordhow guriga ayuu markaasi imaanayaa ayay sii raacisay hadalkeeda. ila wareediyo ku dhow reerka Maradona ayaa waxaa markaasi lagu soo waramayaa in markaasi uu ka baxay halistii ku jiray, iyadoo weliba Maradona iminka la sheegayo in laga soo saaray isbitaalkii uu ku jiray kadib markii caloosha uu dhiig kaga furmay.